galab wanaagsan dhammaan waxaan ahay xaaris ama ilaaliye ama waardiye ka socda bartamaha Afrika gaar ahaan Cameroon waxaan aaday qolka wax lagu dhaqo kadibna waxaan rabay inaan aado Bria joogto awso marka kadib waxa ii yimid wiilkan yarka markaas uu ku jiray qolka wax lagu dhaqo wuxuuna ii sheegay inuu doonayo inuu wax uun igala doodo markaan hadalkiisa dhageystay wuxuu isku dayay inuu igu qanciyo inaan muslim noqdo maxaa yeelay taasi midda ee fadliga badan ayay noqon doontaa waxaan weydiiyay Muslim, that is good for me. And I asked him, maxaad u aaminsan tahay inay taas noqon doonto tan ee fadliga badan markaas wuxuu igu yiri horta tijaabi mana shalay doontid waliga waxaan ku iri anigu waan dhageystay dadka qodobada ah ee qodbaynaya aniguna aad ayaan ugu qanacsanahay hadda maxaa yeelay islaamku waa diinta ugu wanaagsan waxaana doonayaa inaan muslim noqdo maashallah walaalka waxaa diinta ugu yeeray wiil yar oo muslim ah arintaasina tusaale ayay naga siinaysaa in da'du aysan ahayn qofka wax hortaagan weligeedba waxaana ogahay wax ka badan 50% adinka kamid ah inaysan weligood la hadlin shakhsi aan muslim ahayn halkaana waxaa jooga wiil yar oo aan aaminsanahay in da'diisu adiga ay tahay 6 ilaa 7 sano meeqa sano ayaad jirtaa ما شاء الله 12 سنة 12 سنة حتى ما قارن سندكي مراهقنimada walaalkeena halkan jooga ayuuna islaamka ku qanciyay ma sha Allah oo ka socda Cameroon walaal islaamka ma waxaad ku galaysaa doonistaada xorta ah ma doonaysaa inaad islaamka ku soo gasho doonistaada xorta ah ha mudane qofku qasbay miyaa jiro maya qofi qasbay ma sha Allah waxaad ku raacaysaa doonistaada xorta ah ma rumaysantaa inuu hal ilaah jiro ha waan rumaysan inuu hal ilaah jiro rumaysantaa inuu Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu yahay nabiga ugu dambeeyay rususha hagaag marka aniga shahaadada waxaan kugu qaban doonaa af carabi adiguna gadaasheeda kale insha Allah ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is his messenger and servant mashallah muslim ayaad noqotaa adiga may Allah reward you ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ka abaal mariyo oon ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga baryayaa inuu ku hanuuniyo waxaan ilaahay ka baryayaa subhanahu wa ta'ala inuu jannada kugu irsaaqo waxaan kaloo ilaahay u baryayaa wiilkaas yar ma sha Allah waxaana ka dalbanayaa walaalaha markaad soo dhaweynaysaan muslim cusub jilicsanaada una sabra wax kasto ay u baahan yihiin ku saacida oo ku kaalmeeya sida loo helayaba tiro badan oo hay'ado ah halkan Dubai hadii aad u baahataan macluumaad kasta oo quseeya islaamka aad ayaa idin kugu soo dhaweynayaa si aad hay'adaha islaamiga ula xiriirtaan Allah ku abaal mariyo walaalkay